munaasabad baroordiiq ah oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada tan London. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya. waxaa sidoo kale munaasabadaasi goobjoog ka ahaa fanaaniin, odayaal, siyaasiyiin iyo waxgarad iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska. waxaa inta badan looga hadlay dhibaatooyinka loo geysto ama lagu dilo xildhibaanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. dadkii munaasabadaasi ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan Seesay oo ahaa xildhibaanka wiilkiisa lala dilay xildhibaan Xayd, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan: inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. marka hore walaalayaal, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa runtii caawa farxadiya inaan kulligeena isugu nimaado baroordiiqdan inagoo ka xun dhibaatooyinka ka dhacayo dalkeenna hooyo iyo dadka naftood hurayaasha ah ee dalkooda iyo dadkooda u shaqaynayo oo maalin walbo gardarrada ku dhimanaya laguna dilayo. waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka halkaa ku geeriyooday oo ugu dambeeyey nin uu dhalay xildhibaan Seesay oo hadda nala joogo. waxaa la yiraahdaa maxamuud maxamed. waxaa dhalay xildhibaanka hadda maanta nagula sugan halkan. asagana runtii waxaan leenahay shilku wuxuu kula dhacay oo lala ninkii la dilay Xayd iyo asaga gaari isla saarnaa. waxaan leenahay ilaahay adigana samir iyo iimaan ka siiyo, kulligeenna aan u duceyno in ilaahay u naxariisto. isagana curadkiisii uu ahaa sida runtii uu noo sheegay, sabir iyo iimaan Allah ka siiyo. caawa baroordiiqdan aan isugu nimid waxaan rajaynayaa inay noqoto tii ugu dambeysay. xildhibaanadu soo tiriyay faraha badnaa iyo wiilka uu dhalay xildhibaan Seesay oo ahaa nin aan garanayo, weliba ayna shaqana dhex martay. waxaan leeyahay Allah u naxariisto, xildhibaan sabir Allah ka siiyo. dhammaanteen sidoo kale aan u duceyno. waxaa xusuud mudan wiilka inuu la geeriyooday xildhibaan Xayd. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsi daaqatul mawt baa la yiri. maanta caawa halkaan aan iskugu nimid waxaan rabnaa inaan u tacsiyeyno xildhibaan Seesay oo wiilkiisa ugu dambeyntii uu geeriyooday isagoo ay Generaal Xayd isla socdaan. marka waxaa la yiri adduunkana waxa ugu daran baa la yiri, geerida waxa ugu daran qofka taqaanid baa la yiri. adduunka qofka taqaanid baa kuugu daran. annaga tii kulli noogu urugada badneed waxay ahayd intii aanu naqiinay walaasheen Saada Cali iyo maxaa la yiraahaa Generaal Xayd. samariya iman kulliga Allah naga siiyo intii dhimatay. ilaahay dalkeena nabadha nooga dhigo. ilaahay geeridan tii ugu dambeysay oo wadankeeda ka dhacda ha noqoto. annaga inteenaas meesha fadhida waxaan jecelnahay wadankeena ku noqono. maalin kasta annagu waxaan u taaganahay waa aragtay qeyrada naga dhamaatay inaanu heesayno inaan wadankeega ibn ilaahay nabad nooga dhigo. ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah dalkeena nabada inaan ku wada noqono. ugu dambeyntiina xildhibaan Seesay ayaa sheegay dilka loo geystay wiilkiisa inuusan dib uga dhigaynin shaqada uu hayo ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa halkan inaan ugu tacsiyeeyo xildhibaanadii aan shalay isla shaqaynaynay oo maantana ilaahay dartiis u dhinteen ayagoo dalkooda iyo diintooda u shaqaynayo. xildhibaan Riino, xildhibaan Cabdicasiis, xildhibaan maxamed warsame Faysal, xildhibaan Xayd, xildhibaan Saada Cali warsame waxay u dhinteen ayagoo dalkooda u dhaartay inay samata bixiyaan, ayagoo duruufta aragteen ku shaqaynayo. anigan waxaan diyaar u ahay dalkayga ilaa oo meel ka tago ama inaan ku dhinto ama inaan ku noolaado ayaan diyaar u ahay. aan meesha wiilkayga ku dhintay inaan ka baqayn waalidka iyo wiilkana simbir waxaa geesinimo badan ahayn waalidka. Yuusuf Garabey, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.